soo dhawaada saaxiibadeena YouTube. haddii aad tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka noo saar subscribe. ugu horreyn waxaan arkaynaa hal sawir oo ay ku wada jiraan hooyo iyo labadeeda ilmood iyo aabahood. sidoo kale waxaa lana barayaa gabar lagu magacaabo Rosie oo markii weynaato baran doonta cilmi nafsiga kana shaqayn doonta dhakhtarka dhimirka. sidoo kale waxaa lana barayaa nin ka xanuunsanaya dhimirka oo la yiraahdo Jerly maadaama ay baratay cilmi nafsiga. sidoo kale waxay dib ugu soo laabanaysaa maamulaha waxaana uu sheegayaa inay jirto gabar kale oo lagu magacaabo Luri oo iyadana la xanuunsanaysa xanuunka dhimirka. Rosie iyo gabadhan waxa dhex martay arrin la yaab leh. Rosie mar walba waxay isku daydaa inay dejiso gabadhan xaaladeeda maadaama ay dareemayso xanuun dhimirka ah. way fariisay waxaanay la wadaagtay xaaladeeda inay u sheegto ayadoo ula hadlaysa si qabow, balse Lucy waxay u sheegtay inay nolosheeda ay muddo badan ay la noolayd warwar iyo dhibaato aad u fara badan. Lucy dhulka ay ku dhacday wayna qaylisay halka ay Rosie ay ka cabsatay waxaanay ku carartay taleefanka si aysan waxba u soo gaarsiin. isla markiiba Lucy waxay la soo baxday mindi ayadoo dhoola cadeynaysa waxaanay iskaga qashay canka. Rosie arrintan waxay ku noqotay arrin la yaab leh iyo argagax. mana ay rabin Rosie ay sidatan ay u dhaqanto gabadhan ka xanuunsanaysa dhimirka. sidoo kale waxay u sheegtay raggii maamulayay cisbitaalka waxaanay u sheegeen in maalinka dambe ay dib ugu soo laabanayso dhakhtarka dhimirka. Rosie intaas kadib waxay dib ugu laabatay gurigeeda. markii ay timi gurigeeda waxa ku dhacay walwal ilaa ay wax qabsan weyday. sidoo kale waxa u yimi saaxiibkeed oo ay muddo iskugu dambeysay maadaama arrinta ay maanta soo aragtay ay saaid ay uga walwalsan tahay. saaxiibkeed waxay isku raaceen makhaayad waxaanay isku arkeen asxaabtooda halkaas oo ay ku wada shaaheeyeen ayada Rosie iyo saaxiibkeeda iyo asxaabteeda kaleba. subaxii dambe Rosie waxay soo gashay shaqada waxaanay samaysanaysaa koob kafee ah waxaanay u timi qaybta reception-ka ayadoo dhowr su'aalood weydiinaysa. Rosie markan waxa soo waxay qof oo u sheegay inuu qof banaanka u taagan yahay, balse Rosie waxba ismaysan raacin. waxa ay dib ugu soo laabatay ninkii xanuunsanayay. isla markiiba wuu qayliyay. Rosiena waxa ay dalbatay caawimaad maadaama ay ka baqday inuu dilo ninkan dhimirka ka xanuunsanaya. halkaas oo ninkii dhimirka ka xanuunsanayay loogu yeeray qabta. Rosie aad ayay uga xumaatay arrintan ay mar walba ay la kulmayso waxaanay u sheegtay arrinta ayna la wadaagtay maamulaha. balse habeenkii waxay Rosie dib ugu soo laabataa gurigeeda, balse ma ahan mid jawigeedu uu degan yahay, mana ahan mid aad u faraxsan oo waxay dareemaysaa walwal iyo cabsi fara badan. intaas kadib waxay wacdaa saaxiibkeed. sidoo kale waxaanay la hadashaa booliiska waayo arrinteeda ma wanaagsana oo waxay dareemaysaa cidlo saaid ah iyo walwal. isla markiiba waxa soo gaaray goobta booliiska waxaanay u sheegtay inay dareemayso walwal. sidoo kale waxa gaari ka soo degay saaxiibkeed. Rosie aad ayay ugu farxaday maadaama uu ugu yimi si kadis ah ayna markii hore ay wacday. Rosie markii ay damacday inay seexato way seexan kari weyday maadaama mar walba waxay soo xasuusanaysaa gabadhii Lucy oo mundida isku qalaysay. sidoo kale waxa u timaaday maamo ay deris ay yihiin oo niyada u dhisaysa. Rosie waxay la wadaagtay maamadaas wixii ay isku soo aragtay dadkii xanuunsanayay ee dhimirka iyo sidii ay ula dhaqmeen maadaama iyada uu jawigeeda uusan degnayn. sidoo kale Rosie waxa laga xasumay xaflad dhalasho oo ay dhiganayeen dariskooda. Rosie aad ayay ugu farxday xafladda dhalasho, balse wiilkii loo dhigayay dhalashada ayaa guddoonsiiyey hadiyadaas. markii ay ka soo saartay Rosie waxay noqotay bisad, balse Selma Filana waxay aragtay gabadhii dhimirka ka xanuunsanaysay ee Rosie ee markii hore ay dabiibaysay ee lagu magacaabayay Lucy. markii ay aragtay waxay ku dhex dhacday muraayad maadaama ay saaid ay uga argagaxday. sidoo kale waxaan arkaynaa saaxiibkeed iyo Rosie oo wada saaran baabuur. run ahaantii saaxiibkeed ayay wax walba ay u sheegaysaa, sidoo kale inay dareemayso walwal iyo dhibaatooyin fara badan ee waxay aragtay. sidoo kale internetka ayay gelisay waxa ay soo aragtay, balse habeenkaas meena seexan saaxiibkeedna lama uusan joogin ilaa ay iska oyday. subaxii waxay ka soo baxdaa gurigeeda
waxaanay u timaadaa gabar lagu magacaabo Victoria. sidoo kale Victoria waxay tustaa qolkeeda, waxaanay ku aragtay sawiraan badan oo ku dhigsan sawiraantaas oo u eg kuwo horor ah iyo kuwo mar walba iyo kuwo horor ah iyo kuwo dhoola cadeynaya. Rosie isla markiiba way la yaabtay, waxaanay dhahday maxaan ka soo doonay saaxiibada Victoria, maadaama ay Victoria ay sawirada mar walba ay sawirto. Rosie waxay dib ugu soo laabatay guri ka mid ah asxaabteeda, isla markaasna waxay rabtaa in uu jawigeedu uu ka bedelmo jawigii hore ee ay gurigeeda ay ku joogtay. saaxiibkeed ayay haddana wax walba ay u sheegtay iyo wixii ay soo aragtay si ay ula wadaagto dhibaatada ay dareemayso. saaxiibkeedna wuxuu isticmaalayaa Facebook, balse wuxuu tusay muuqaal uu daawanayay, muuqaalkaas oo ahaa muuqaal nin alaab laga qaadayay. Rosie intaas kadib waxay dib ay ugu soo laabataa gurigeeda. guriga markii ay timi waxay ugu timi saaxiibkeed iyo naag kale. isla markiiba way ka xanaaqday maadaama aysan u soo sheegin inay guriga yimaadaan, wayna ka soo laabatay. sidoo kale waxay is arkayaan gabar kale oo ay saaxiibo ay yihiin Rosie, waxaanay u sheegaysaa inay iska dhaafto walwalkan faraha badan iyo qaylada tan. Rosie waxay leedahay anigu maan rabin inaan barto cilmi nafsiga, sababtoo ah waxna igumaysan dhiceen haddaanan baran lahayn. sidoo kale saaxiibadeed ayaa guriga ka soo baxday. Rosiena waxay isku dayday inay kaxayso gaariga. sidoo kale saaxiibadeed ayaa isla markiiba muraayadda ka soo eegtay, wayna ka naxday. intaas kadib Rosie waxaa soo wacay saaxiibkeed, waxaana uu ka wareysanaya xaaladeeda iyo waxa ay ku sugan tahay. ayadana waxay ku dhahaysaa in xaalkaygu uu fiican yahay, adiga kaaga iiga waran. balse waxay u sheegtay inay weli ay dareemayso walwalkii iyo cabsidii faraha badnayd ee ay markii hore ay dareemaysay. intaas kadib saaxiibkeed waa uu u yimi, waxaanay tageen booliiska si ay arinteeda ay ula wadaagto Rosie booliiska. balse isla markiiba waxaa loo keenay nin maxbuus ahaa oo ay u sheegto arinteeda. balse ninkan maxbuuska ah asaga laftigiisa waxaa haya xanuunka dhimirka, ayada laftigeeda cabsi ayay dareemaysaa. isla markiiba goobta waa laga saaray. Rosie oo way iskaga baxday. ninkiina waxa uu isku dayay inuu gacanta ugu qaado Rosie. insha Allah waa inoo muuqaalkan xiga saaxiibadeena YouTube.